ودعاء كلية أكوسو تشيدي سدقنا شهي إرساقدا إلهينا وكا أجيبيا تبارك وتعالى دعاء ودعاء قيمة بضن أو قالية وهدية أن إذين صدريو ولا ليال ملك السد شوكتام دعاء هضيعن إلهيكم الضيعية تبارك وتعالى إلهي إذا مكيس تبارك وتعالى دعاء wax badan oo maanta ka maqan ay ku soo jiidaysaa dadkeena in badan oo kamid ah waxay la daala dhacayaan yaraanta dakhliga soo gariya ama irsaaqada haday xataa xoogaa haystaan baraka la'aan ay ka cabanayaan waxaaba laga yaabaa inay shaqaysanayaan si joogto ah oo wax la soo baxayaan laakiin faa'iido badan ma arkaan waxa laga yaabaa dukaan inay furtaan dukaankii ay baraka ka waayaan kadib dukaankii ay ka guuraan meel kala degaan sidaas ay wareersan yihiin dadka qaarkoodna waxa laga yaabaa irsaaqada iyo xoolaha inay uga imaadaan meel ay safileynba ayagoon u daalin ayagoon u dhididin midkaan dhididaya dadaalayana inuu waxba waayo ama baraka la'aan ay ku dhacdo wixii soo galiya ayaa laga yaabaa sidaas ay nolosha u kala duwan mid kale waxaad arkaysaa wax yar ilaahay siiyay laakiin baraka ilaahay ugu daray oo aad barakadiisu u badan tahay oo risqigiisa aad u barakaysan yahay wax kasta ilaahay baa qoray tabaaraka wa tacaala irsaaqadaada allah qoray hase yeeshee dadaal ayaa lagu yiri ilaahay wuxuu yiri wa fis samaa'i rizqukum ma tu'adun laakiin asbaab ayaa la rabaa inaad ilaahay talada saaratid tabaaraka wa tacaala inaad dadaashaa la rabaa oo shaqaysatid shaqadaas iyo dadaalkaasna waxaa jira shay kale oo irsaaqadaada sii siyaadinaya oo ah ilaahay inaad u dhawaatid oo aad raalli gelisid salaadu waxa weeye walaalayaal tiirka diinteenna sidoo kale ilaahay wuxuuna amray inaan samayno akhrisonna adkaarta gelinka hore gelinka dambe salaada subax markaad tukatid adkaaru sabax akhriso intaada dukaankaada iyo shaqadaada aadin kadaalika casarka markaad tukatid adkaarul masaa iyo adkaartii galabta akhriso istighfaarta badi sababtoo ah istighfaartu waxay furtaa albaabada kaa xiran sidoo kale ha hilmaamin salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam barakada ayuu kuu badinayaa salliga nabi maxamed sabab u noqonayaa irsaaqadaadu inay ku barakowdo wax yarba aad haysatide inay ku bataan oo ku barakoobaan ayaa salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka qayb qaadanaya ka tagin gaar ahaan maalinta jumcaha sidaas oo tahay walaalayaal nabi maxamed duco nooga tagay khaas ah oo aan dhahno xilliga ay naga haysato mushkilad nolosheena ducadaas oo noo dardaarmay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam si aan u dhahno marka irsaaqadu nagu yaraado ama faqriga uu sii siyaado maalin maalmaha kamid nabi maxamed nin ansaarta kamid ayuu arkay oo masaajidka jooga waliba waqti aan waqtigii salaada ahayn markaasuu su'aal weydiiyay oo wuxuu yiri maxaa halka ku fariisiyay murugana ka muuqatay sababtu waa maxay wuxuu yiri rasuulka ilaahay waa murugaysanahay muruga waxa igu haysay deyn aan qabo rasuulka ilaahay wuxuu ku yiri ma ku baraa oo ma ku sheegaa hadal hadaa tiraahdid ilaahay uu ka qaadayo murugadan dantaadana uu ku gudayo deyntaana aad iska bixinaysid rasuulka ilaahay uu ii sheego midaan u baahanaaye markaasuu nabi maxamed u sheegay ninkaas reer ansaareed ah oo saxaabadiisa kamid ah annagana wada ayay noo tahay iyo qof kastoo dhibaatada ay qabsato waana ducada wuxuu yiri waxa dhahdaa allahumma inni a'uudu bika min al-hammi wal-hazani وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قلنك هورنا أخرسو قلنك دمنا أخرسو هل شير يعني هل مر إله وحان كام مغنقري مروغدا يهمغ والولك وحان كلو إله كام مغنقلي أو يغسارتا عجسيغ يوهسيغ وحان كلو كام مغنقلي فلينمو يبخيلنمو وحان كلو كام مغنقلي دين إيغا تنبضته iyo dadku inay iga adkaadaan ama raggo ama cadowgu inuu iga adkaado oo igu farxo waa ka magan galay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ducadan jecelaystay naftayda iyo tiinaba inaan u soo gudbiyo subaxiina hal mar akhriso galabtiina hal mar akhriso markastoo muruga dareentina akhriso niyadaadana si dhab uga dhaadhici ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ka ajiibayo kuna soo jawaabayo jazaakumullahu khayran si faafiya laga yaabay qof murugaysan inaad u dirtid oo ajar weyn aad kasbatid hana hilmaamin badbaada channel inaad ka mid noqotid bahdeeda salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh